madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan u haynaa anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka iyo gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan u haynaa xurmad weyn waxaan u haynaa isaga iyo xukuumaddiisaba sharaf sida ay noo sharaftay anoo shafrina waxa uu ku jawaabay su'aasha kama jawaabi karo xasan sheekhna wuu ka jawaabay waxa aqoonsigii keenay marka waxaanu cadaynaynaa in waxa weeye xasan sheekh maxamuud uu dalkan iyo dadkan karaamo ku leeyahay xukuumaddu ay tahay xukuumad ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa waxaanu maanta ku soo dhaweeynaa garoonka Laascaanood International Airport madaxweynaha ama hogaamiyaha maamulka Khaatumo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo isugu jiray golaha xukuumadda waa waragtaa mudane madaxweyne sida qiimaha badan ee sharafta badan ee gobonimada ah ee dadkaagu ay ku jecel yihiin iyagoo ka kala yimi guud ahaan dalka oo dhan ilaa waxa weeye bari guntii ilaa iyo hawd ilaa iyo mudug dadka halka maraya waxay isugu jiraan labadii maamulka Puntland iyo maamulka Khaatumo aad iyo aad ku soo dhaweynaya waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare xamse cabdi barre wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan xukuumadda oo dhan haddii ay golaha baarlamaanka tahay iyo haddii ay golaha fulinta tahay iyo haddii ay golaha waxa weeye guurtida tahay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed sida wanaagsan ee gobonimada ah ee waxa weeye ay u garteen in maamulka Khaatumo yahay maamul dhameystiran aqoonsigana Ilaahay baa haye madaxweyne xasan sheekh uu waxa weeye maamulku u aqoonsaday aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa madaxweyne waa waragtaa ummadii gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxa weeye rabitaankaaga iyo rabitaankooda iyo rabitaanka ummadda Soomaaliyeed intuba isku mid buu noqday madaxweyne waxaanu ku sheegaynaa inaanu raali ka nahay inaanu ku soo dhaweynayno inaanu ku faraxsanahay aqoonsiga waxa weeye aad naga daba keentay ee maamulada goboleedada kalena aanu kaga mid noqonay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waxaanu kale u mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeed sida wanaagsan ee caasimadda lagu soo dhaweeyay madaxweynahayagii ama hogaamiyahayagii aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waxaan intaa ku darayaa runtii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan u haynaa anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka iyo gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan u haynaa xurmad weyn waxaan u haynaa isaga iyo xukuumaddiisaba sharaf sida ay noo sharaftay anoo shafrina waxa weeye waxa laga yaabaa in meelaha qaarkood hadaba aad ka maqmaqasheen waxa weeye arrinkaasi waxa weeye arrin gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa aragtaa maanta madaxweyne dadku waxay ku faraxsan yihiin oo taageersan yihiin xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa weeye haddii aad hadal kala maqashaana wadi ka raali gelinaynaa waxa weeye dadku maanta meel bay u wada jeedaan Soomaali maanta waa isku wada mid ama waqooyi ha joogto ama koonfur ha joogto waxaan leenahay cid kasta oo darisana inay wanaag iyo nabadgelyo ku wada noolaadaan ama gobollada waqooyi ha joogeen ama gobollada koonfur ha joogeen dawladda federaalkana waxa weeye waxa ninka mali dadkiisa u mahadnaqin Ilaahna uma mahadnaqo waan u mahadcelinaynaa hadda ka horna waa nagi tagnay oo si fiican baa naloo soo dhaweeyay hadda hogaamiyahayga tagayna waka aqoonsiga noo keenay marka dawladda federaalka soo taageersanin soo xasan sheekh iyo xukuumaddiisa ma taageersanin inta hal qodob baan ku darayaa madaxweynihii ka horeeyay hal su'aal baa la weydiiyay waxa la yiri mudane madaxweyne gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn sidee baad u aragtaa maxayse kaga jiraan dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku jawaabay su'aasha kama jawaabi karo xasan sheekhna wuu ka jawaabay waxa aqoonsigii keenay marka waxaanu cadaynaynaa in waxa weeye xasan sheekh maxamuud uu dalkan iyo dadkan karaamo ku leeyahay xukuumaddu ay tahay xukuumad ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa